aduu dagaalka ayaa ku jirtay waxaad ahayd ciidamadii maxaakiimta oo kasoo horjeeday ciidamada amxaarada iyo dowladda ku meel gaarka shakhsi aduu muslimiintaas wanaagsan maaragtay wanaagga jecel un baan ka mid ahaa sidaas ayaana maaragtay yaa laygu aaneeyo la ii qabta maxaad maaragtay diinta islaamka u garab istaagtay yaa ku qabtay xageesa lagu qabtay waxaa horta ay qabtay oo yani si macnawi ahaana noo qabtay ciidamada Ethiopia ayay ahayd laakiin dadka cumilada u adeegayay waxay ahaayeen dad Soomaali sheegta laakiin maskax Ethiopia ay saaran tahay oo markay ummadii Soomaaliyeed ay maaragtay ku guul dareysteen yani hanashadeedii oo ummadii Soomaaliyeed dirirtay ayay waxay yani soo ciidansadeen oo soo raaceen Ethiopia dadka ay qabtana waxay ahaayeen Cabdi Xasan Cawaale Qaybdiid iyo Maxamed Aadan Darwiish labada nin baa ay qabatay marka jirdila oo ay dadka ku sameeyaan miyaa jirta ama adiga lagu sameeyay dad cidiyaha laga bixiyay baa jirtay sidii loo garaacayay way jireen ani hadda aan saaxiibkeen wada soconay la yiraahdo Bashir Aadan Fiil Abu Nucmaan ku magac dheer ninkaas cidiyaha laga bixiyay see ku tagtay Addis Ababa waxaan ku tagnay in la maxkamadeeyo ayaa maaragtay naloo diyaariyay maxkamadiina Cabdullaahi Yuusuf iyo Cali Geedi baa diiday 5 nin anigu aan ku jiray lama maxkamadeyn kara la yiri Addis Ababa la geeyay baawur baan la saaray gacmahana la ka xiray indhahana la ka xiray baydhabana la geeyay isla maalinta dambe diyaarad baan la saaray oo rag kala qaar baa la soo celiyo rag baa qabiilahan qaar ugu dooday maaragtay 3 nin anigu aan kamid ahana iyo niman Oromo 24 27 naasna indhahana la ka xiray gacmahana isku xirxiran laba maalmood ayaa maaragtay xabsi Addis Ababa ku jira ayaana la ku shubay 3 waa la soo celiyay Oromo kale oo ku xirneed xabsiga Baydhabo baana la ku daray 27 baan la isku geynteen oo aan ahay 3 Soomaaliya iyo 24 waxaana qaaday nin leeyahay Maxamed Aadan Bidaar nin leeyahay Olaanta argagixisada la dagaalanka ashahada dirirka marka dadka aad ugu tagteen xabsiga Addis Ababa intee bay tiradoodu dhamaayeen waxaan ugu tagnay xabsigaas xabsiyadu way badnaayeen laakiin anoo kii aan ku xirnayn baan ka warbixin karnaa 6 nin baan ugu tagnay sidaan aan jeclahay 2 nin oo u dhalasay Yemen iyo nin u dhashay Urdun nin u dhashay South Africa nin u dhashay Tunisia laakiin dhalasho Faransa haystay iyo nin Kenyatia ayaga xagga laga soo waxaa laga soo qabtay xuduudaha Soomaaliya laga soo maxaa marka ay u kala duwanaayeen xabiskii baarista xisbiga oo Muqdisho madaxtooyada agtiisa ku yaala lagu xiray markii ugu horeysay iyo midka lagu gudbiyo Addis Ababa runtii horta nimankan Soomaalidaahi yani diintoodina way ka tageen nin maarta nimanka saraakiisha wali xabsiga nin mas'uulka oday la oran jiray oo Australia ayuu buu ka yimid ninka xabsiga marka loo dhiyo maartay mas'uulka looga dhigay buu ahaa xabsigaas aan ku xirnayn ayaan subaxda kamid ah waxaan ku iri warniyo soo dad muslimiin yani dadkan dad muslimiin weeye yani dadka inaad masquulahan iyo ka hagaajisaan wuxuu igu jawaabay muslimada waxa ka weyn qofka Soomaalinimadiisa ka weyn marka gabdho masaakiin oo mulaa oo maaragtay ahludiin oo baa xirxiran oo maaragtay gabdhaas xabsiga Addis Ababa ku dhaleen oo maaragtay la geeyay gabdho Soomaaliyeed niman Soomaaliyeed baa qabtay amxaaray u dhiibeen حتى أمحارض أنت هيين قبلها وجهه الله فيقن وأمحارض حتى ما تابنين لكن حب مركي أديس أبaba laga soo celiyay oo Soomaaliya loo soo celiyay gabdhahaas wajiga iyo xijaabka waa laga fiiqay waana la dilay gabdhahaas maaragtay waa la caayo la aflagaadeynayay ayadoo maaragtay yani iimaanka iyo diintooda ay haystaan waxaan ahayn aan lagu haysanin marka waxyaabo falxun badan baa ka jiray runtii marka nimankaas xabsiga Addis Ababa xabsiga u bedelnaa يعني نمن قالا أم بي أهاين وقالا بي أهاين لكن حلقة تحقيق وركا إنك باريانو كان هلنا عذابين لكن دينتين مرة نقوم فرقلين waxaa jirdila miyay kugu sameeyeen marka qolada Etoobiyaanka oo xabsigooda aad ku jirtay way nagu sameeyeen oo maaragtay korbaana loo xiray maalintii istaag baan ku dhameysanaynay hamiinkiina gadaal baan loo xiray
aduu jir dilku intaas unbuu maaragtay gadaal horeyda ma noo tilmaami kartaa xaggee lagaa xiray seesa lagu xiray yani gadaal oo la isku xiray waxa weeye qofkii oo maaragtay gadaal saan oo gacmaha gadaal u xiran baa katiinada lagu xiray gadaal baa lagu xirin kortuna waxa weeye waa lagu istaajin oo inta katiinada labada gacmood gacan baa laga furin gacantan baa laga xirin darbi koraa la soo suraya marka maanta dhan waa taagnaan ka yimid anoo rukuucsan oo maaragtay ayuu dhunta ay qabtay wuuna idilo maaragtay yani salaadii anoo salaad ku jiro buu ituuray marka adigu waxaas oo dhan waxba aanu arkay min anagu waxaan ka cabsanayna bahalla iyo yani koronto in la ku dhajiyo iyo waxa un baan ka cabsanaynay ayadana ilaahay baa subxaanahu wa tacaala maaragtay naga kaafiyey see lagu soo daayay marka kuwa anaga nala dhashay baan nagadoo na geeyey kuwa aan soomaali iskugu nimaadno ayaan na soo gaday niman beesha sida daarood ama reexaan la yiraahdo ayaa isoo iibiyay aniga niman saraakiil oo generaal kurtun la yiraahdo oo maarta reexaan oo cili ah iyo nin la Cabdicasiis maaragtay generaal Cabdicasiis daba dheer la yiraahdo nimankaas safaaradda Ethiopia ay ku leedahay Kenya ninka safiirka ka ambay isgaranayeen marka waxaa jirtay niman walaala oo maaragtay beesha reexaan u dhashay oo aan wada xirnayn baa jiray marka nimankaas reexaankaas ay ku soo gadi lahaayeen ayay maaragtay in badan ka daba wareegayeen kabacdina ilaahay fadligiisa anaga un baa telefoon helnay dadkii baan la hadalnay adiga nimankii saraakiishaha iyo baana dadkii wadaadda lacag aruuriyay un baan la xiriirnay oo walaalaha nin kamid uu la hadlay sidaas aan nin kale yar kale oo raxan weyn ah oo Bashiir Aadan Fiile la yiraahdo Nucmaan labadeenaas markaas warkeena la helay nimankaas baan soo gada marka oo lacag shubay waxaa tiri kuwana waa nagateen kuwana waa soo gadeen maxay ku kala yihiin labadoodu adiga waxay noo kala yihiin horta inna khalaqnaakum anaga ina abuurnay wajacalnaakum waxaan ka yeelnay shucuuban wa qabaa'ilan litacaarafu yani qabiilka ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ka yeelay in la isku garto oo la isku xirno si aan nasabada u dhumin marka waxay ii kala yihiin kuwana naftaydan ku bedeli lahaa maantay boqolkayga ayay leeyihiin baan dhihi karnaa waxayna ii yihiin walaal iyo waraabayna ii kala yihiin labadooda cabdi qaybdiid waxaan isku ahayn saacad baan wadanahay reer hilowlaan wadanahay reer sharmaakaan wadanahay reer ebekar baan wadanahay eedadaydii saddexaad buu qabaa asagii awogay 4 oday bay kala tirsadaan marka intaas unbaa isku jirnaa marka dadkana waxaa kala geeyey waa diin baa dadka kala geysay oo waxaad uguba ma cusub maahan weli abiisa diinta ku kala tagay marka isbahaysigu wuxuu ka kooban yahay 4 xubnood oo mid ay tahay baarlamaanka xorta qurba jooga bulshada rayidka iyo maxaakiimta islaamiga dad isqaban kara ma yihiin qurba joog iyo maaragtay bulshada rayidka iyo يعني وانجو يوم هذا لو قرابته ويه